السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا وركي كومنا تلفزيونka iyo raadiyaha dowladda Puntland oo aan akhriyo anigoo Asad Saciid qodobka ugu horeeya hadii aan ku bilowno magaalada Garowe waxa lagu soo gabagabeeyay shirka hal-abuurka ganacsiga ee Puntland oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda ganacsiga ee warshadaha dowladda Puntland waxa ay magaalada Garowe ku soo gabagabeysay shirweynaha hal-abuurka ganacsiga Puntland oo muddo 2 maalmood uga socday magaalada Garowe ganacsato aqoon-yahano iyo warshadley kuwaas oo ka kala yimi gobolada Puntland waxaana looga hadlayay sidii dhalinyarada shaqo abuur lagu heli lahaa. mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa sheegay inay sii wadi doonaan barnaamijkan noocan oo shaqo abuurka loogu sameynayo dhalinyarada Puntland. dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay dib boorka uga jafi doonto xiriirkii diblomaasiyadeed iyo safaaraddii ay ku lahayd ee dalka Soomaaliya. waxay noqonaysaa markii koobaad ee safaaradda Mareykanku ku leeyahay ay ka howlgasho magaalada Muqdisho muddo ku dhow 30 sano sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. warka waaxda arrimaha dibadda ka soo yeeray ayaa lagu sheegay in tallaabadani oo Mareykanku qaaday ay ka dhigan tahay sida Mareykanka uga go'an tahay xoojinta xasiloonida dimuqraadiyadda iyo horumarka dhaqaale ee danta u ah labada dal. boqorka waddanka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa warqad casumaada u diray dhigiisa dalkaasi Qatar. boqor Salmaan bin Cabdilcasiis boqorka dalka Sacuudiga ayaa warqad casumaada u diray boqorka dalka Qatar Tamim bin Ahmed taas oo ku saabsan kasoo qaybgalka shirka wadamada saliidda qaniga ku ah ee iskaashiga gacanka kaasoo 9 bishan lagu qaban doono magaalada Riyaad caasimadda dalka Sacuudiga. warqadda casumaada ayaa la sii mariyay xogayaha guud ee ururka iskaashiga gacanka carabta ee dalka Bahrain Cabdilfataax bin Rashiid Al Sayani. xiriirka labada dal ayaa go'ay kadib markii dowladda Sacuudigu ay wadamada bariga dhexe ku cadaadisay xiriirka loo jaro waddanka Qatar. arrintaasi oo cirka ku sii sharartay xiriirkii ka dhexeeyay labada wadan. wadamada isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa Ruushka ku eedeeyay inuu jabinayo heshiiskii gantaalaha ridada dhexe ee ku saabsanaa nabadeynta. Mareykanka ayaa Ruushka u qabtay muddo kaba dambaysa 60 maalmood inay dib ugu soo laabtaan una hoggaansamaan heshiiska xakamaynta horumarinta gantaalaha ridada dhexe ee la saxeexay 1987. Mareykanka ayaa ku hanjabay in haddii aysan Ruushku arrintaasi samayn ay heshiiska ka bixi doonaan. xogayaha guud ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Bambo ayaa hadalkan ka sheegay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada gaashaanbuurta NATO ee Brussels ka dhacay waxaana muuqata inay jirto taageero guud oo loo muujinayo go'aanka Mareykanka balse taxadar uu jiro. daawadayaal warkii koobnaa intaasi aan kusoo afmeeraya anigoo Asad Saciid ayaa la socodsiinaya warka xiga intaanu ku kulmi doono sidaas iyo nabadino.